inta sharafta badan mansab walba ku fadhiya da' walbana ku fadhiya leh oo nagala soo qayb galay maantay institutionkan iyo mind oo aan u bogay fariimaha uu gudbinayo ayna ahayd horumarin bulsho oo loo baahan yahay in laga doodo horta xagee u soconaa maxaan nahay maxaan qabsan karnaa waa mahadsan tahay farxiyo xildhibaan farxiyo muumin meesha waxaa ugu cad inaan anigu ku jiro gabdhaha ugu waaweyn meesha fadhiya I'm glad welina aan generationada socdo wax la qaybsanayo waa ku faraxsanahay alxamdulilah aniga kulley taariikhdaydu inta badan waa iska caddahay oo markaan da'yar jiray oo ilaa 16 17 u dhaxeeyaan bilaabay inaan raadiyo muqdisho aan ka shaqeeyo anoo iskuulka aada maalinta khamiista inta kala galab iyo habeen aan shaqeyn jiray laakiin maalinta khamiista waxaan sii dayn jiray barnaamij la yiraahdo maaweelada carruurta jimcada bixi jiro carruurta oo dhan ay meesha u fadhiyaano maalintaas khamiista marka iskoolkayga waa u goyn jiray waayo waxaan ku qasbanaa intaan imaado oon duuba barnaamijka inaan markaas aan tago nasiib wanaag anoo weli iskuulkii dhigtaa waxaa yimid telefishinka oo markaas dawlado carab ah oo walaalo ah Kuwait ay noo samaysay wasiirkii anoo maqan oo iskoolkayga jiro galabtii shaqada soo galaa wasiirkii iyo agaasimihii guud iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii telefishinka iyo agaasimayaashii waxyaha kii raadiyaha kii soona kulli la wada fariistay telefishinku wuxuu u baahan yahay marka experience markaas waana kooway ahayd waxaa jiray marka dafcad ka soo qalin jabisay kulliyadii oo saxaafadda laakiin kaamaradan iyo geedkan aan ku hadlayno ma dhib yara marka hore qofkaan qoon qalqal bay ku ridaysaa anoo maqan oo iskuul jiro caawa geli doona xiriirin iyo warka dalka leh baan waxaan imi galabtii 10 saac la soo qaaday baawra SBS la dhijir markaas dal taagan baan ahayn baa la igu soo doonay waa imi maqribadiya waxa yimid agaasimihi telefishinka uu nool yahay weli Axmed Cali Askar geeridiisa ma maqal darrada wuxuu ii soo diray fariin halkaana waa ka salaamaya wuxuu yiri shukri maanta waa fariisanay waxaan go'aansanay telefishinka furidiisa groupka yimid maadaama kaamaradu ay ku cusub tahay microphone-ku in aan ku qaadano the first person oo loo qaato aniga marka wax macno badan markaas iima sameyneynin actually marka waxaan yiri okay gabar yarna waa ahay oo waayahan dhahay waxba kama qabo saasaan marka ku soo galay tababaraa loo sameynayay kuwii kale oo saxaafadda ka yimid oo hal bil raadi muqdisho lagu tababarayay habeenkii ugu horeeyaan marka waxaan nasiib u yeeshay studio la dhaho aniga iyo gabar kale oo markii dambe ka baxday inaan halkani waa telefishinka Soomaaliya kow isagoo shucaaca badan oo inaan ka dhahno intii xasuusata waxaa dood badan mar walba ay ka taagan tahay gabdhaha iyo horumarkooda sida ay sheegtay wasiir Xaniifa gabdhuhu mar walba challenge wuu jiraa laakiin haddana saasoo ay tahay nasiibkuna waa kaalmeeyay ma aqaano ima ilaahay dhibkaas badan ima marsiinin because shaqadaydan ku fiicnaa marka waxaan ahaa shaqadayda intii la ii dhiiba iyo ka fiicanba marka gabar walbana haddii ay saas tahay challenge badan ma jiri doono challenge gabar iyo wiil waa jira guryuhuna ka bilowda markaan guriga ka soo korayna waxa lagu leeyahay wiilka dharka u dhaq wiilka sariirta u gogol wiilka canjeerada u dub anagoo iskool aadayna sida ay sheegaysay Xaniifo baan subaxii 5 ka caynaayo marka canjeerada dubno ka bacdi baan intaan la labisano laakiin wiilka markiiba intuu labistaa iskoolka loo diraya marka taas challenge-ga iyo dhaqanka Soomaalida inay ka timid baan u malaynayaa laakiin anigu ma eedeynayo umana arko dhib waxaan ka qaadnay dadnimo waxaan ka qaadnay gabadhu wax baratay ama yaysan baranin Soomaaliyeed oo ilaahay dadnimadeeda geliyay waxa ay qaban karto kuma xirna wiilashu inay ma aragta aan u aragno inay naga horeeyaan sax waa nooga badan tihiin jaanisada sax waa nooga badan tihiin shaqooyinka waa nooga badan tihiin doonista xitaa qofeed oo qofkaasi hamiga uu leeyahay waa nooga badan tihiin
oo waa jiri karaan gabdho qaba intaa qabtiin oo kale laakiin badanaa inta badan gabadhu waxay ku qanacdaa nin intay gursato ilmo dhasho gurigeeda inay iska joogto oo marwo la yiraahdo intaas ku qanacdaa laakiin waa heli karnaa anagoo guryaheena joogna oo ilmo dhalayna oo shaqaynayna haddana inaan nimanka compete garayno oo maaragtay wayna dhacdaa oo hadda group gabdho oo anigu aan aqaano ama waxa bartaan ama yay baran haddana waxaa jira wax badan oo raggu aysan qaban karin ama meel aysan gaarin ganacsiga ha ahaato siyaasadda markaan ka soo tagno aniga markaan koraayay intii markaas joogtaa garanaysa ii karaa ka mid ah u malaynaya dadkiina kale ma xasuusataane iyo xaliimo iyo markaan anagu koraynay waxaa jira few gabdho magac ku lahaa dalkan oo hiblaayo faadmo cumar xaashi faadmo cureeji dahaba faarax jaamacadda joogtay مريم يوسف مريحان قبل اللي يجري راقية حاجة دعاء قبل اللي يجري فاضل عمر حاشي قبل اللي يجري مريم عريف قبل ها وحنا هاي رول موديل رنت مركان إذن شيء أو شقوين كيكوتشرين يميلها أي هين يو مقعود السوق الدراء يو حسبي يو الدنيا دي أركي هوانك يو وحنا هاين مراية جراد يو مراية حتى قبلها سامركي هراي لكن وحنا هاي أنك رول موديل أو حين سدهيني ميلها ساهيك سنين وحد عيد قالكي والك العرري إن وحن قرن كرنا أم أجن هاي قبلها الصوماليات قيبت إك قاتل even though إك دجال كان قيب كقاتين ويجرين كوا دجال كوا جامين هاي أو نصيب دروين كوا إكمل هاي ما بي وحاكون دعاء ملاينا هاي بيو فردية بيو سعودك عي عمل أنا كون عادي لكن marka guud ahaan in general aan ka hadlayno gabadha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed wixii ay ka qayb qaadatay ama ilmihiisa ula hartay odaygu markuu dagaalka aaday ama dagaalka ka fakaday ama darbiga fariistay kii wax bartay oo xabad qaadan karin waxa reerkii u istaagay waxa waaye gabadha Soomaaliyeed oo hooyada ahayd kuma helno aqoonsigeena kuma helno intaas anagoo qabana intaas anagoo bulshada ugu fadhina haddana mar walba wiilka Soomaaliyeed wuxuu noo arkaa privilege inuu naga leeyahay naga horeeyo asaga mar walba hatta qabiilka wuxuu ku leeyahay naag anaga nama matali kartee wiilashu hana matalaan anagoo og boqolkiiba 80 gabadhu in ay ka naxariis badan tahay ka daacadsan tahay bulshada uga fiican tahay ilmaha barbaarintooda uga fiican tahay role model inay noqoto ay wiilka uga fiican tahay anagoo og haday wax xataa wax yar ay xadaa cirkeedu waa iska yarya gabadhu waa yar tahay laakiin aw nin wax deeqaaya ma jiraan sorry waa idin la kaftamaya ha noqoto marka midda meesha taal iyo challenge-gana haystaa wuxuu yahay sida ay sheegtay wasiiradu halkii gabar oo soo baxday intaas oo magaca loo bixiyaa wax yar oo tusaale insina markaan qaxay oo Yurub tagay baan ani weligay ma ahayn dadka fariista xawaaladan qabtay xawaaladii markaan qabtay niman baa xawaalada hore u haystay magaalada aan deganaa magaalada Rotterdam la dhahan deganaan jiray ikar iyo waa yaqaani farxiyo muumin bas nimankii la yaabay ku noqotay and good thing waxa dadka wax tara waa gabdhahana xiriir fiican aan kulligood la lahaa walaashay waa ogtahay iyada xataa waxay iga soo diri jirtay magaalada deganayd tan gabar walba meeshay joogtay lacagta anay iimaan anay soo diray nimankii magaalada joog waa ugu kaceen oo xawaalad layaashii ah waxay gaareen inay dhahaan oo naagaha nimankooda hal oo approach gareeyaan naagtan nimanka iyo naagaha isku dirtaa ka ceshada naagihiina marka aniga maba u haayo waqti ma ogta ina naag maba xawaalad iyo ilmo dhalow iyo waxbaan ku mashquulsanahay marka tusaalahan soo qaataa waxay tahay mar walba gabadha soo kacda oo waxa ninku qaban karta ama ka badan qaban karta looma ogoleyn waa la diriraa waa maxay ahayday hoosa la geeyaa laakiin laba waxba waan ku guuleysanaa in ilaahay noo qoray oo wixii ilaahay ku qoray qofna kaama celin kara alxamdulillah iyo anagoo inteena isku kalsoonaydo aan ku harin wararkoodii waa socono koraan u soconaa ganacsiyan soo maray saxafiyan soo ahaa hooyan soo ahaa haddana politician ahay intabana waxaan qabaa inaan sidii ugu fiicnayd u qabtay nimanku waxay rabaan ay qabi karaan laakiin intaba waxaan qabaa inaan success ku ahaa waan ku faraxsanahay waxaan rabaa marka gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigta ee hadda soo koraaya haniyad jabina waxaan hubaa
markaad taarged leedahay meel inaad gaarto aad rabto wax kaa celin karaa ma jiraan waa gaaraysaa dadaalka la imow si fiican ugu xirxiro nimankii cidiina iyo xitaa walaalaha ay way ku soo weerari doonaan no problem gala dagaalka inagoo aan ragganaga waxaa la rabaa ma ogtahay ilaahay positionkuuna siiyeyna inaan qaadano oo aanan bulshada u horseedin fasahaad bulshadeena oo dhaqmayso ilmihi aan dhaqayno haddana inaan dalka dhismihiisa iyo horumarinta reerka iyo hagaajinta ragga laftooda aan qayb ka qaadano ninka Soomaaliyeed hadduusan haysan gabar toosiso oo markuu baxaayo wax u sheegto oo markuu xanaaqsan yahay yimaado talada siiso oo gurigii uusan ka walwalayno waa markaas markuu meel gaari karo waa markaas markuu wax noqon karo noo qira marka idinkuna marka naga inaan maaragtay toosinta aan naga qaadataan at least marka waxaan rabaa inaan waa la badan yahay ganacsatada fadhisa waxaa fadhiya gudoomiyaha Xaliima fadhiso gudoomiyaal degma fadhiyo gabdho waxa fadhiya madaxda dalka kamid ah waa ku faraxtahay ilaahayna ku qoro waa gaari kartaa halka wax oo laga rabaa waxay tahay isku duubni iyo gabadhii shaqaysa iyo tii wax barato tii kale inay baritaarto oo soo qaado badana annaga waxaan lagu eedeeyaa markaan codka la bixinayo waxay dhahan idinku isisiiyo codka which is true ma isisiino annaga waxaan siinaynaa hebel oo laakiin ma dhahaayo heblaayo oo gabar oo wax tare ka waa ogahay gabadhu waa kan xariis badan tahay way ka bulsho ka dhexgal badan tahay way uga jilicsan tahay bulshada ragga marka waxaa la rabaa annagu inaan garab isisiino haddaanan annagu garab isisiinin haddaanan kaashan ragga laftooda inta fiican oo rabta inay na baritaarto inaanan meelna gaaraynin waxaan idinku waaninayaa marka gabdho kaalintiinii dumarnimo gabarnimo hooyanimo waxaa ku dartiin kaalinta wadankiinu idinkaga baahan yahay oo aan la'aantiin socon karinin waxaanan ku faraxsanahay in mar walba aan isugu imaano arrimahan oo kale oo laga hadlo wacyigelin bulshadeena loo sameeyo wax badan aan noo dhiman aniga xamar haddaan ugu badnaa intaan joogo laakiin in iyo aawda ahaan jiro oo bilo markaan dhowr bilood waa imaan jiray waa ka noqon jiray wax badanaa bulshadeena u dhiman from sida dacaska loo qaato sida loo hadlo sida cuntada loo cuno sida jidka loo maro sida loo approach gareeyo waxa aad rabto sida bulshada booskaaga in uga qaadato ay ahayd intaasba inaan barano oo inteena taqaanaa inta kale ay barto oo social media iyo televisionada aan ka hadalno oo ummadda waxa ka dhiman aan u sheegno intaasba waana awoodnaa waana sameeynaynaa waana mahadsantiin soo dhawaada